بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوتيوب channel ka daawanaysaan waa engineer Ibrahim Asmaan muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa cashar kooban casharkaas oo hoostiga systemka Windows operating system waxaan sharxayaa sida title-ka ama ciwaanka muuqaalka aad ka soo aragtay internet network computer-ka iyo wax la yiraahdo Windows firewall ama Windows Defender firewall isagana power option-ka oo isaguna ah computer-kaaga xagga dabka soo shaqeynayo isagana waxaan ku baran doonaa muuqaalkan sidoo waxaanu casharkan ka bilaabi doonaa sidee buu qofku ku ogaan karaa nooca internet ah ee uu ku xiran yahay waxaan tagi doonaa marka control panel waxaan soo gali doontaa control panel imika waxaan soo galnay control panelka marka imika haddii aan doonayno in aynu isticmaalo control panelka qaybihiisa kala duwan waxay rabtaa inay hadda kala habaysan yihiin ay koox u soo baxayaan toolska kala duwan ee control panel halkan sare haddii meeshan feed ah oo qaabka uu muuqan doono control panel aniga waxa ay dooran ugu muhiimsan oo ah category hadii aan sii furo aan ku dhufto waxa u soo baxaya large icons oo ah in calaamadahan soo bixi doonaya iconska laga dhigo kuwa waaweyn xagga muuqaalka small icon haddaan ka dhigana way yaraan doonaan sidan oo kale marka muhiimaddu waxay tahay inaan small iyo large sanadaysan aan la isticmaalo category si uu kugu fududeeyo inaad aqoonsatid shayga raadinaysid meesha aad ugu hagaajintid haddii aan internet hadda doonayo inaan ogaado nooca internet aan ku xidhanahay gooreen waxaan doonayaa inaan ku soo xidho internet waxaan aragtaan inaan haba wireless aan hotspot furtay mobilkayga oo ayaan hotspot furtay marka waxaan isticmaalayaa network baan isticmaalayaa dadteed counter panel markaan soo galno halkan waxaa ku qoran network and internet isaga ayaan gujin doonaa kadib waxay soo bixi doonaa network and sharing center iyo internet options waxaan ku dhufan doonaa oo aan gujinayaa oo dhanka sare ka qoran tahay network and sharing center ana meesha laga ogaado internetka qofku uu ku xiran yahay nooca uu yahay waxaag markan wuxuu noo soo gudbiyay marka qaybtan ayuuna keenay oo ah nooca internetkan ku xiranahay hadda halkan aad aragtaan internetka isticmaalaya wireless magaciisa magacaas ayaan igu qoran isaga noociisu marka waa public network maaha network private ah waa mid public ah nooca uu connection-ku yahayna internetkuna waa kan noociisu waa wifi haddii wireless isticmaalsid ama haddaad fiiro isticmaali sidoo kale waxaad ka ogaanaysaa bartan maadaama wifi uu yahayna waxaan ogaaday in internetka noocan isticmaalaya sida halka ka muuqato inuu yahay wifi ama wireless sidoo kalena uu yahay public network marka ma ilaalin karaa waxyaabaha iiga soo gudbaya ama virus ha noqdaan ama security-ga waxyaabaha weeqaya oo hoos u dhigaya oo internetkan isticmaalaya iiga soo gudbaya computerka Windows operating system-ka ku duugan yahay ma laga control karaa su'aasha jawaabteedu waa haa oo public iyo private network ba kaada hadba isticmaalaysid waxa jira option ka ilaalinaya waxyaabaha kaaga soo gudbaya waana la xidhaa waana la furaa laakiin hadba waxa fiican in mar walba ku fureen waxaan ku noqon doonaa control panelka ayaa soo geli doonaa kadib halkan hoose kor baan soo kacaya waxa ku qoran meesha ugu horeysa system and security option-ka ugu horeeya control panelka system and security markaan ku soo dhufto waxaan eegi doonaa halkan waxa ku qoran Windows Defender firewall marka kan wuxuu computerka ka difaacaa oo ka ilaalinaya wax la wixii network ka soo gudbaya sidoo kale dadka qaar waxay aaminsan yihiin virus ka ilaaliyo laakiin kaliya wuxuu ka ilaalinayaa software-da khadka ka soo download garaysato iyo internetka waxyaabaha malicious-ka ama virus-ka ama wasakh haddii la yiraahdaba oo waxa la wixii software-da la soo degtay ka soo raaci karo computerkaaga wax yeelan kara inta ugu badan waxa isticmaalaa oo software-da waxyaabaha halista soo raacay dadka hackerska dadka jabsada noqdaan kuwa black hat ama kuwa grey la yiraahdo aduu noocyo badan baa jira dadka wax jabsada magacyo loo yaqaan jira laakiin waxay isticmaalaan software caadi ah waxay soo dhex raacayaan file-ka marka internetka soo raacaya ayuu kan ka ilaalinaya internetkana isaga ayaa ka ilaalin doona kaaga soo gudbaya sidaas ayaa wax loogu bixiyay Windows Defender firewall isaga ayaan click siin doonaa oo aan ku dhufan doonaa imika waxaad aragtaan private network uu yahay cagaar uu yahay oo tirka saaran macnaheedu waa ammaan ama waa safe guest or public network ayaguna isna waatay anigu wireless noocan isticmaalana soo eegnay oo wuxuu ahaa public network agana wad ku arki kartaan active public networks ka hadda furan shaqeynaya oo Ibrahim Asmaan keenu halkan hoosana ka arkay marka dawlad waxaan isticmaalaya weeyaan si adabteed hadda waxaan isticmaalaya public network hadii public-gan marka aan xiro waxa la wixii public network-ga oo software-da aan kala soo degan network-gan aan isticmaalaya iga soo raaca maaha mid aan xakameyn karo salaanada bidixda aan raaco firewall-ka waxa laga xiri karaa bartan oo ah tan Windows Defender firewall on or off isaga markaan click soo siiyo waa arin haboon ma ahayn mar walba laakiin mar walba furiin ba fiican
hadda kan oo kale markaad xidhaysid xasaankaas unbay ku beegaysaa tan off baa leedahay sidaa waxaad ku xidhay kii ahaa private-ka ka ilaalinayay oo waa kan halkan aad ku aragtaa private network public network-kan xaggan aad ka xidhaysaa iminka haddaan idhaahdo okay meesha cagaarka ahayd waxay isku bedeli doontaa casaan sidaa u aragtaan saa darteed iminka waxyaabaha internetka private-ka ah internetka public-ka ah ee ama ha noqdo internet suuqa lagaaga furay ama qof asasweedkiisa la isticmaashay ama private ha noqdo ama mid guri ha noqdo ama mid aad gaar u leedahay ha noqdo waxaan oo dhan wax alla wixii aad kala soo degtid waxay noqon doonaan kuwaan ammaan ahayn sidaa darteed buu firewalk wuxuu u fiican yahay mar walba si uu ammaanka internet kaaga ilaaliyo inuu furan yahay marka hadarsta uma baahan inuu xidhno waxaa leeyahay tan on off baan leeyahay marka tan cagaarkan ku fiiriya on baan leeyahay private-kana on kadib waxaan gujin doonaa okay iminka say isku bedelaan midabkoodii wakaa waa green ama waa cagaar ama waa doog iminka private network iyo public network ba kama walwalaya inay iga soo gudbaan waxyaabo malicious ah oo software la soo raaciyay darteed internetkaaga noocaad ku xidhan tahay waxaad ka eegi doontaa counterbalance markaad soo gashid network and internet kadib waxaad sii geli doontaa network and sharing center kadib waxaad ogaanaysaa inuu yahay public network sida kan isticmaalayo iyo inuu yahay private network haddii wireless isticmaalaysid halkan aad eegaysaa wifi haddii aad isticmaalaysid wired ama mid xarig ah ama fiilaha RJ45 na halkan ayuu kaaga soo muujinayaa waxaan u gudbayaa marka muuqaalkan inta ka hadhay waxaan u gudbaynaa casharka xiga oo aan ku baran doono sida qofku u maamuli karo computerkiisa soo isticmaalaya operating systemka Windows-ka hadba nooca uu yahay dabka uu isticmaalayo soo u shaqeynayo marka waxaan ogaan doonaa dabka computerkeenu qaabka uu u shaqeynayo waxaan tegaynaa marka isla meesha hore ee ahayd system and security oo ammaanka computerka laga maamulo click ayaan siinaya ama ku dhufanayaa kadib meeshan aad aragtaan ay ku qoran tahay power options ayaan halkan soo geyn doonaa power options markaan soo galo iminka waxa ay dooran mid la yiraahdo lascaanoodi oo aan dabcan samaystay marka inta ugu badan waa la samaystaa kuwa ku yimaadana waad eegi kartaan hadaan leeyahay markaan samaysanayo oo halkan bidixda ayaan waxaan ku dhufan doonaa sida aragtaan create a power plan kadib computerku qaabka dabkiisa u shaqeeya waa saddexdan waa balanced iyo power saver iyo high performance balanced waxa weeyaan in uu isku dheelitiro systemku dabka uu isticmaalayo iyo shaqada uu qabanayo marka shaqadiisu hadday dab yar u baahan tahay dab badan uma baahna mana isticmaalo marka isku dheelitiraya shaqadii uu qabanayay computerku iyo dabkii uu isticmaali lahaa power saverku isagu wuxuu sameeyaa dabkiiba ku kaydinaya laakiin shaqadii computerka ama performance-gii ayuu dhimaya marka waa computerkii wuxuu ka shaqeynayaa inuu ku tashiilo ama ku daryeelo dabka taasina waxay keenaysaa in computerku gaabiyo maadaama mar walba wax la dhaqaalayo waxyaalo badan laga tanaasulay high performance iyadu waa ka ugu sareeya waa ka lagu jecel yahay laakiin wuxuu isticmaalaa dab badan kan dab ma kaydinayo laakiin laga yaabo in computerku si fiican u shaqeeyo balancerkaasa dadka inta badan lagula taliyaa oo calaamadan ay kusoo muujiyeen qoraalka ahi waa recommended iyagaa kusoo jeedinaya inaad kan isticmaasho halkan hoose plan name qorshaha magaciisa ayaad ku qoran doontaa waxaan leeyahay kaba soo qaad Soomaali dib waxaan leeyahay next waxa xiga ayaan dhamaystiraynaa kadib halkan waa wada never laakiin waxaan sharxayaa qoraalka ah turn off the display iyo qoraalka ah put the computer to sleep turn off the display waxa weeyaan haddii computerkaaga aad isticmaali weydo goormaa shaashada la daminaya marka laba waqti baa la damiyaa marna waxay damaysaa maruu dabaysan yahay sida calaamada ka muuqata oo baterigiisu full yahay ama dab fiican ku jiro iyo mar uu fiilada ku jiro chargerka labadaba dee shaashada waa ka tegi kartaa labada jeerba waxaad ku kala programinaysaa halkan iyo halkan kana hoosena waa goormaa computerkaaga sleep loo diraya sleep computerka waxa laga wadaa in computerkaaga shutdown uusan noqon aan la wada damin laakiin muddo kadib haddaad doonayso daqiiqada kadib inaad isticmaasho xoogaa sleep baad yara dhahaysa tusaalahaan aan tagno Windows-ka aan soo taabano powerka oo kale powerka markaan taabano halkan waxa ku qoran sleep computerka uu yara seexanaya hadhow markaan badhanka powerka taabto caadi buu soo daarmaya uma baahna waqtigii dheeraa uu soo kici jiray marka sleep qofka isticmaala qof doonaya computerka inuu waqti degdeg u isticmaalo ama tusaalahaan hadda kale dimiso waxa 20 daqiiqo kadib inaad soo isticmaasho ama 10 daqiiqo kadib sleep baad haysaa hadda shaddoon dhexdeeda waqti badan ku soo kaco waxaga ka imika waa goorma la seexinaya computerka oo kan hoose ah iyo goorma shaashada la daminaya waa kan sare marka shaashada xilliga la daminayo laba xilli baa la damin karaa maray dabaysan tahay iyo maray fiiro ku jirto sidoo kale computerka wuxuu seexan karaa mar dabaysan yahay iyo mar uu fiilo ku jiro marba xaaladda computerka ku sugan yahay unbaa shaqeynaysa tusaale haddii computerka uu dabaysan yahay taa fiilada shaqo laguma laha oo daqiiqada halka la geliya ma shaqeynaya tusaale haddii rabaa 10 daqiiqo kadib computerka markuu ii dabaysan yahay haddii aan isticmaali waayo iyo shaashada la damiyo dadteed shaashada damintu waa tan
باتريجين واحد دبيسين هي مصوفية 10 minutes ما صون دورانيا هذا كمبيوتر كاس هذه الاستعمال وعي 1 دقيقة سوق دبيسن شاشة الدنيا سنة وإن السيحية صوفر إسنا عن كده 20 دقيقة marka uu dabaysan yahay baynu ku shaqeynaa oo ah hadii computerkaas mudada uu dabka uu ku jiro batterigiisu isticmaal waayo muddo 20 daqiiqo ah isagu sidii buu noqonaa tii hore kaliya waxay ahayd shashada la damiyo laakiin computerka dhan bal sixniya qaybta xagan haytana waa iyadoo marka dabka la gelinayo alaabaan kan dhaho 2 saacadood oo ku beegan marka shashada la damiyo waa isagoo chargerka la geliyay hadii la taaban waayo la isticmaal waayo shashadu waxay dimaysaa 2 saacadood kadib ka hoosana waa waxaan ka soo dhigayaa 5 saacadood ama 4 saacadood oo ku beegan isliig computerkaas sidoo fiilada ku jiro dabka oo charger ku socdo dii la isticmaal waayo oo laga tago muddo 4 saacadood ah 4 saacadood markay dhacdo kadib computerkaas isliig buu wali doonaa laba farqiyo u dhaxeeya calaamada ku fahansiinaysa mar uu dabaysan yahay mar uu san dabaysan xariga uu ku jiro sadarteed halkaas ayaan isagana cashku soo koobay ugu dambeyn marka waxa dhihi doontaa create sida ayuu ku samaysmay qorshihii computerkaaga magacii uu qaabtayna wakaad ku soo qortay hada wasalaam casharku intaas ayuu ku eegahay waxaanu ku baranay 3 cashar oo saaran oo ah sidee ku ogaan kartaa nooca internet ee aad ku xiran tahay sidee iskaga ilaalin kartaa nooca internet aad ku xiran tahay waxyaabaha wasakhda ah ee ka soo raaca khadka iyo ugu dambeyn oo ah sidee aad u bedeli kartaa qorshana uga samaysan kartaa dabka computerkaaga uu qaabka uu shaqeeyo waa Ibrahim Ismaan walaalkan xiga intaas ka kulmi doono waxaan kaga tagayaa amaana Allah